Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeyga Kismaayo Xawaash Cooking. Maanta waxaan rabaa inaan sameeyo achaari, liinta la dhahayo achaari. Marka insha Allah liin iyo basbaas inta iigu jira. Waxaan rabaa inaan karkariyo. Basbaaska waa karkarin kartaa haddaa suuqa kasoo waaysid basbaas dhadhan. Saasana u karkarinaysaa liinta iyo biyaha iyo basbaaska waa iskula saaraysaa dabka laazima ma ahan high ka dhig low ka dhig, it's okay. Marka laazim waxa waa inaad dabooshid haddaa arkin biyaha ka daadanayana inaad dabka gaabisid waay. Marka meeshan waxaa ii yaalo basbaaska aan soo shiitay iyo waxaa ii yaalo alaabyo kale. Basbaaska noocan waa aan soo shiitay ani intaan kusoo shubtay. Liintana ii yaalo, waxaa ii yaalo Kismaayo masala, waxaa ii yaalo achaarigan oo cambaha laga sameeyay asigana. Inta waxaa iigu jira huruud iyo dhalada aan soo diyaarsaday inaan ku shubo. Marka hadda waxaan rabaa inaan waxa dhan aan iskugu dardaro, aan qaso oo hadhow liinta aan dhexda kaga shubo. Marka waxaa ila fiirsaan saan aan iskugu qasayo waxa dhan u jeedaan. Waxaan hadda ka bilaabaa masalaha Kismaayo masala 2 qaandaan ku shubanaa. Waa u jeedaan. Haddaa aragtid 3 waa ka dhigan kartaa, laakiin ani waxaan isticmaalayaa achaarigaas kale cambaha. Asigana waxaan ku shubanaa 2 qaando. Waxaan rabaa inuu kisto dhanaan fiican u ii lahaado. Haddaa kaas qabin dhib ma lahan. Okay waaye. Waa isticmaali kartaa waxaan kale. Okay, hadda huruudka ma ii qiyaasno. Saa adi rabtida ugu shubanaysaa. Huruud waxba ma haleeyo asiga marka achaariga isticmaalaysid huruudka okay waaye. Marka aan qiyaas dhan ma u lihi. Adiga u samaysan kartaa 1 qaando 2 qaando inta hartaa ku shuban kartaa. Laakiin ani ma barabiba qiyaas waxaan rabaa iskaaga shubtaa. Cusbada soo hartay. Cusbada qiyaas dhan ma ii lahan. Waa iskaaga shubtaa cusbada asigana. It depends sa adiga u rabtid. Haddaa rabtid wax badan, haddaa rabtid wax yar. Kole dhanaanka loo kaalmeena. Marka qofbo si wax u jecel inuu u samaysto. Aniga cusbo badan waa iska jeclahay. Idinka haddaa rabtiin waa ka dhimi kartaan. Marka waa isku qasaysiin. Waa u jeedaan inuu si fiican iskugu qasmo waaye. Kalarkan waa bedelma wuxuu noqonaa laakiin kisto yellow camal uu noqonaa. Maxaa huruudan ku shubay. Waxaa ku jiro Kismaayo masala, waxaa ku jiro achaariga. Marka intaan wax haddaa isku dardartid maasha Allah achaarigaaga waa macaan badnaana. Waxaa way achaariga lagu sheegay dhan waxaa way recipe-gan hadduu ka halaabo liinta ma fiicnaanayo. Hadduu kugu yaraadane liinta qaraaru isku bedelaa. Maxaa dhadhan ma lahan. Wixii dhadhanka uu sameyn lahaa dhanba kan waaye. Kan hadduuna ka yaraado mise ka halaabo waxba ma kuu toosayo. Marka insha Allah hadda waxaan rabaa inaan fiiriyo liintii hadduu bislaaday. Liinta dhib waa sida lagu ogaado. Gabdho badan waxay dhin abaayo liinta waa ku wareerne. Marka liinta ila fiiriya. Taabta hadduu haddaa aragtin inuu wali adag yahay dhaafa biyaha ha ka soo bixinina. Maxaa liintan haddii bislaanin qaadida caaga ku shubtid aana degan tahay wadamadan Yurubta iyo Mareykanka aad degan tahay qorraxna male waqtigan liintaada dhib waa see ku bislaato guriga dhexdiisa. Waa inaad sugtaa 2-3 weeks. Liinta markay saan noqoto u jeedaan meesha saan u dildilaacay markaa aragtaan, so that's it. Liinta diyaar waa markaan. Waa ka dejinaysaa. Waxaa ku shubaysaa meel aad ku qalajin kartid liinta because biyo leedahay. Biyahaas ma la rabo korka oo uu ka leeyahay inaad qalajisid waay. Marka mar walba waxaa muhiim liinta inuu bislaado. Basbaaskana waa u jeedaan. Basbaaska saasoo noqday. Asna hadday qaleel waa isku dhagnaa. Hadda biyahan ku karkariyay waa aragteen soo noqday. Muhiimka liinta inay ku bislaato waay. Haddii kale guriga dhexdiisa hadaa ku sameynaysid 3 to 4 weeks aad sugaysaa. Haddii kale liinta markaa cuntid qaraar waay. Maxaa liinta ma bislaanin. Liintana hadday bislaanin wali waxaa ku jiro dhadhankii qaraarka ku jiro. Laakiin liinta hadday si fiican u bislaato maasha Allah waay. Marka hadda waa kasoo dejiwa u jeedaan. Hadda waxaan rabaa liinta inaan diyaariyo, aan googooyo, aan wixii aan ugu talagalay aan ku shubto. Marka horta inaan qalajiyo waysaan haddaa idinkugu sheegay. Haddaa liinta qalajinin waxa waaye ma fiicno biyahaas waxaas oo gelinaysid dhalada because adi liin bisa isticmaalaysaa mogtahay. Qal xataa ma isticmaalo. Dadka qaarkood qalay isticmaalaan ani ma rabi. Fiiri liinta ma ujeedin soo u jilcay. Saana la rabaa liintaada inay noqoto. Laakiin liinta hadday ka adag tahay oo ay si fiican u karin, that means liinta achaarigaaga qaraaru noqonaa. Make sure samee inuu liintaada saan yahay.
waa ujeedaan walaalahayga wax kasta waa idinla sheergareynayaa ajus waxaan rabaa inaa idinka si fiican wax u samaysataan. Ma raba inuu idinka halaabo oo dhahdan oo waxaan fiirsanay kismaayo xawaaj cooking waxeeda ma fiicno. No, waxaa follow gareysiin saa aniga wax u sameynayo walaalahayga, wax walba waa idin hagaaga. Markaan jira waa ujeedaan liinta ilaa inteen geeya haddaa ilaa ay hoos geysado liinta wuu kaa go'go'aa. Marka waxaan saas ugu yeelay soo xawaajigii iyo wixii uu dhexdu iskugu haayo. Waa ujeedaa waa isku haayaa. Markaan iskugu laalaabo waa qaada waxaan gelinaa dhaladan dhex gelinaa. Markaa dhalada gelinaysan ha iskaaga dhex tuurin. Waxaa muhiim ah inuu kor u soo jeedo meesha xawaajigii iyo basbaaskii wixii aa ku shushubtay. Markaa goonaysidna make sure meesha aa ka goonaysid iska fiiri. Labada dhinac ha ka gooni, hal dhinac bisa loo baahan yahay. Haddaa dhinac kale ka gooysid waa kusoo go'go'a, dhalada dhexdiisa ku dhex go'go'a. Hadhow recipe-gi wixii haddaa qasqasnay gudaha aan ku shubnay haddaa ku shubtid uu ka daadaadanaa. Marka liinta aa ku shubaysid waxaa recipe-ga ku shubaysid cusbaha ka daba geenin haddaa rabta extra cusbo maya. Markaa liinta dhalada dhex gelisid meesha ku saftid si fiican u dhigtid kadib 4-5 xabo camal markaa si fiican iskula dhigtid markaasaa qaadaysaa. Haddaa huruud rabtida ku kurshubanaysaa, haddaa rabtida cusbaa ku shubanaysaa si fiican uu dhexgalo. Marka waxaa jiro marmar liinta hoos geedka oo ku yaalo waa weyn yahay, fadhiga kasta wuxuu ku noqonaa balansiga ku xumaanaa. It's okay hadduu hal xabo xataa uu ka dhaco, laakiin kuwa kale muhiimku waxa waa inay kor u soo kacaan. Hadda cusbadii aan ku shubtay waa ujeedaan waxaan ku shubtay masaalihii haddaayaan kasta kor kaga shubay. Huruudan haddana ku daraa saan idin sheegay waa huruudka waxba ma haleynayo. cusbadana waxa waaye dhanaanka loo sii zaa'idina. Haddii aad rabtid dhanaan zaa'id lafta inuu ka galo liinta cusbada inaad kasto u zaa'idisid waaye. Marka insha Allah hadda waxaan rabaa kuwii kale ii hareen dhan inaan jarjaro aan qaado aan ku shubo dhalada sidii aan u raseyn lahaa na waa idin sheegay waa idin tusay. Markaan kuwa aasaan u jarjartiin walaalahayga make sure samee marka labaad saaraysiin inaad si fiican u saartaan ha iskaaga dhex tuurina. Liinta hadduu gadoomo saa idin sheegay wixii aad gudaha ku shubto dhan wuxuu ku daadanaa dhalada dhexdeeda gadigadi haddaa u dhigtid. Laakiin haddaa korkor u dhigtid ku shubtid liinta kale waxa waa weli recipe-gi wuxuu dhex fadhiyaa liinta dhexdiisa. Marka liinta recipe-ga ilaa wuxuu ka galaa maqaarka laftiisa galaa. That's why maqaarka markaas uu jajabaa markaa liinta cunaysid. Aniga ma jecli liinta in la qaado la jarjaro biyo lagu shubo sufriyo la saaro iska karkariyo. Waa arkay dad badan asaas sameeyaan. Ani ma jecli. Ani saanaan jeclay. Saana waxaa jeclahay ayeeyadii Allah u naxariista ay bartay liinta insaan loo gooyo saan loo sameeyo. Marka Soomaali ay iga sheekeyn jirtay waxay dhahday liinta dhagaxan ku shiidan jirnay basbaaska iyo cusbada. Liintan qorax la iska dhigaa biyo kuleel waa la iskaaga shubayay laakiin qoraxda karin jiray. Marka anaka waa kan wadamo qurbaan joognaa ma lahan dhagaxi wax shiiday ma lahan mashiino waaye qorax fiican ma qabno alxamdulillaah rabbil caalamiin. Laakiin saas ay tahayna waxayna waa sameysana raashinkeena waa noo macaanaada. Marka walaalahayga mar walba waxaa idinka aan idin sheega marka basbaaskan ku shubaysiin basbaaska gudguduudka haddaa rabtaan waa jarjari kartaan. Haddaa rabin sidiisa iskaaga dhex tuuraysiin it's okay dib ma lahan. Because basbaaskan orange-ka meeshan ku shubay basbaas aad u kulul badan waay. Inkasta uu hadhow kuleelka uu ka jabayo meeshan uu ku jiro laakiin waa kulul yahay. So qofba si uu jecel yahay. Dadna waxay jecel yihiin basbaaska kulul, dadna waxay jecel yihiin basbaas aan saas u kululeen. Marka hadda aan saan u dhameeyaa ujeedaan basbaaskii anigoo aan jarjarin aan ku shushubaa dhalada gudihiisa saa aniga aan rabo waaye saanan u rabaa. Marka insha Allah idinkane haddaa rabtaan saan ku samaysta haddaa rabtaan sida kale. Basbaaska haddaa ii soo hari waa kana ma rabi inaan daadiyo. Marka waxaan sameynaa liintii dhalada iigu jirtay aan ku shuba maadaama liinta aan rabo inaan ku shubo dhalada weyn. Marka liinta horta koo intaan ku qasaa marka inta ku qaso kadib le waxaan ku shubanaa
dhalada. Marka huruud yar haddana kusii shubaa. Huruudda waa jeclay aniga, adi choice aa leedahay haddaa rabtid ha ku shubanin wax badan. Huruudda ani aadaan u jeclahay. Marka waxaana wax dhalo ku jiro waaye, wax ku daahayo waaye. Marka huruudda mar walba bacteria dilaa. Huruudda iyo xulbada labadaba bacteria dilaan. Marka waa jeclahay haddaan raashin meel aan ogahay aan ku dhaafayo inuu igu jiro huruud ama xulbo. Marka hadda waxaan rabaa inaan ku shubto baaquli, waxaan rabaa dhalada inaan ku shubo basbaaska, laakiin meeshaan agsir wasaq aan arkay. Waxa fiican wax hada sameynaysid meel nadiif inaad ku sameysid. Marka basbaaskii liintana meesha iiga daataadatay. Marka insha Allah hadda biyahan aan saan u qasay waxaan ku shubaa dhaladii oo aan ku shubay liinta iyo basbaaska. Waa ujeedaan markaasaas ugu shubo. Marka laba dhalo liina ii yaalo, yacni ma ahan labada dhalo liin dhan inaa meeshaan ku shubtid, maya qiyaasaan ku socdaa. Marna waxaa laga yaabaa hal dhalo bis inaan isticmaalo, mar waxaa laga yaabaa hal dhalo iyo bar inaan isticmaalo. Marka hadduu kugu cusub yahay waxaa soo gadanaysaa laba dhalo oo liin soo gado, in case haddaa aragtid inuu kugu yaraado saa ugu darsatid. Ani dhaladeeda ujeedaan oo achaariga wuxuu qaadaa 11 xabo liin. 11 xabo haddaan ka badiyo dhalada ma ii xirmaayo. Marka 11 xabo liin aan isticmaalay iyo labadaas dhalo oo liinta ah. Waa ka cusbo kale aan kusii shibanaysaa. Idin sheegay waa jeclahay cusbada badan because dhadhanku uu waxyeelaa liinta oo fiicneeya. Marka haddana waxaan ku shubanayaa xulbo saa idin sheegay. Xulbada waa jeclahay, waxaan u jeclahay liintan liin aan qamiirinayo waaye oo meel yaanaanayo waaye, bangelinayo farinjideerka banaanku yaalnaana. Marka muhiim waxaa ah inaad markaa sheyga cunaysid inuu bacteria lahaanin. Ma fiicna bacteria, cudurro badan ay leeyihiin. Marka mar walba waxaa fiican in la iska taxadiro. Wixii haddaa guriga uu ku yaalo maasha Allah waa isticmaali kartaa. Liintii waa kana waa dhameeyay walaalaheyga. Kalarkiisna waa ujeedin maasha Allah waaye. Waxaan jeclay inaa ila share gareysiin. Thank you very much.